aan ku bilownay dowladda Mareykanka ayaa mar kale dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ugu baaqay inay dejiyaan xiisada ka dhex taagan ee ka dhalatay afgaradkii badda ee Itoobiya ay la gashay Somaliland. Molly Fee oo ah ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa Arbacadii shalay sheegtay inay ku dhiirigelisay hogaamiyayaasha Soomaaliya iyo Itoobiya inay dejiyaan xiisada kadib markii Addis Ababa iyo Muqdisho ay kula kulantay hogaamiyayaasha labada dal. gobolku ma xamili karo mana u adkeysan karo iska hor imaadyo badan ayay sheegtay wariyaasha mar ay la hadlaysay waxaana ay ku dhiirigelinaynaa bay tiri dhammaan dhinacyada inay dejiyaan xiisada ka dhalatay saxiixa heshiiska is-afgarad. rabitaanka Itoobiya ay intaasi raacisay kordhinta helitaanka dekedaha ganacsi oo ah walaac sax ah waa in lagu xaliyaa wada hadallo ay Itoobiya la yeelato dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha dariska la ah. Molly Fee ayaa sidoo kale ka hadlaysay gooni-sutaaga Somaliland waxayna tiri arrinta maqaamka Somaliland waa in ay xaliyaan dadka Soomaaliyeed oo aysan ku jirin oo ay ku jiraan shacabka Somaliland mana ahan bay tiri inay xaliyaan cid shisheeye ah. Soomaaliya ayaa si weyn u diiday is-afgaradka Itoobiya ay la gashay Somaliland waxayna maalintii shalay ay golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya ay ansixiyeen heshiis 10 sano ah oo ay Soomaaliya la gashay dowladda Turkiga si ay uga caawiso difaaca xeebaha Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidamada badda. xiisada ka dhex taagan Addis Ababa iyo Muqdisho ayaa cirka isku sii shareertay Sabtidii kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in ciidamada amniga Itoobiya ay u diideen inuu galo hoolka shirka madaxda Afrika ee Addis Ababa.